السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا وحنا كنمي بوهودلي reer Buuhoodlaan ay waliba dhaalgalool meesha la yiraahdo ama sagalool leeyba ayaanu ka nimi ciidankani ka soo kacay ciidankani waa ciidan ma dhibaan garaada waxay u soo kaceen halganka laascaanood lagula jiro nimanka argagixisada islam argagixisada annaga kaasaan noo dhaxay ilaa xataa qayuun habad baa noo dhaxa halkaasaanu kala dhacaynaa annagu waxaanu nahay SSC Soomaaliya Sanaag iyo Cayn waxaana la yiraahdaa badhibaan waxaanu nahay nimanka halkan tuban waxaanu nahay reer galooley waligeena waxaanu ahayn SSC Soomaaliya Sanaag iyo Cayn baanu ahayn hadda ka hor markii khaatuba jirtay gabayadan tirey baa aniga qoran oo Soomaaliland aan ku diiday Soomaaliland oo aan lahaa majeerteen wuu tashaday mar raba ma dhaqaaqayaan hawiye xamar buu mulkiyay isaaq waa ma tadoox ma falka Hargeysa tahay diyaaradda beesha suran ninkii aan garan micleen markaa loo meeriyaa oo miriga boogtiin dhulbaanta umaanka waa hunguriga meel isku kuwii maatiya caruur baroomada marinayay meydkiina xabaalayay mashxaradii daba wada mooshinkay dhiganayeen miiskii wada hadalka yiil ninkii baashihii lagu maqolsay madaxa feed lagala dhacay waliba maag loogu daray waa miriga moogtiin Buuhoodlan maanta tagay Buuhoodle BM-ka mushaaxiyo mujaahidka saaran iyo madfacatu tahaleh iyo salaaga ku meersan iyo garoonka maqayqan iyo magaalada bilicda iyo mashxaradii dumarka iyo garoonka la meeriyo silaaya ka maarmo ilaaha ma hadalay macna khaatumad waa Ali Khaliif markuu Ali Khaliif haystay yay ahayd ilaahay naxariista jannaha si ilaa bariga annagu Soomaaliland qalbaan ahay inta dadku culuubin yaan halka xabad iska dhici jiray hadda tala kaasaano hayna hambada hadhay ina kaahin iyo ina koorena waa soo qabanayna hadda sarajiida hore laascaanood baan joognaa anaga kaasaan noo ballan habar isaaq iyo waxba la hari banaanka haysu keen soo saaro anaga badhibaan garaad baan leeyahay badhibaan garaadina la yiraahdana soo hadimu kala degaa madhibaan anagu SSC baan la degnaa SSC baan quudiya qaaran la nahay SSC baan la noolay soo Sanaag iyo Cayn dhulbahanta wuxuu baxaan wuxuu dilana waa dilayna wuxuu daayana waa diirina anagu dhulbahantaan la oodna anagu dhulbahantaan la degaana saasaan lagu ogeeyay salaam anigu Xamdi Xasan Samatar oo u dhashay magaalada Galooli ee gobolka Cayn waxaan maanta u sheegayaa gobolka Cayn iyo SSC iyo dhulbahante iyo gaar iyo islaam wixii maqlay waxaan u sheegayaa in aanu soo gurmanay oo aanu ku talagalay in la jihaadno nimanka islaam waxaan joogaa furinta barta ugu horeysa laascaanood ayaan ka hadlayaa waxaan doonayaa in aan ku janno tagno Soomaaliland iyo isaaq aslam anagu dhulbahantaan nahay sida gudoomiyuhu sheegay anagu dhulbahantaan nahay dhulbahanta wuxuu baxana ciidu dilana waa dilayna ciidu daayana waa dilayna bismillaahir rahmaanir rahiim ciidankan aad arkaysaan ee ku fayshan waa ciidanka beesha madhibaan ee dagaalka kula jira jabhadda argagixisada aslam kuna dhimanaya wuxuuna ciidankani ka yimid gobolka Cayn deegaanada Galooley waxaanu leenahay wax laale wixii horay ugu jirayna waa ku jiraan jiidaha hore annaguna jiidaha hore aan ku jiraa kuwa kale oo badan way soo socdaan wayna imaanayaan wayna ku dhimanayaan horena way ugu dhinteen waxaanu leenahay nimankan Soomaalidiidka aslam dalka iskaga baxeen haddii aan ka bixinna cawaaqibkooda horena waa la arkay hadda waa la arki doonaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh